وcredibility ومصداقية kalsooni in qofka lagu qabi karo qofka in kalsooni lagu qabi karo qofku in lagu kalsoonaada qayd aanad ku kalsoonayn hadduu ku hogaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maayaan xaqu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid inagu waxa ugu badan haddii dadka lasii dacaayadeeyo oo lasii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysa hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead ma hogaamin kara dadka markaa waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo kalsoonida maxaa sameeya hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taalla waa maxay labada shay waa truth telling bay yidhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheega inuu yahay oo aan been lagu baran hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrita ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya mara ka dhicistu waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hogaamin karo idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihiin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihiin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaana alsaadiq alamiin that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaame inay saddex guruub oo leh laa yuzakiihim ilaahay ma dahiro walaa yanduru ilayhim ma eego il naxariista kuma eego cadaab kululna way leeyihin saddexda tani waa maxay waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayey waxaan ahayn lagu hayo midi wuxuu nebigu yihi waa shaykhun zaan oday weynoo zinaysanaya nin weyne xalaashaa buu taaglaayo hadduu zina u sii kaco dee waa meel daran idan sheekh waa yacni qof sinni weyna qof da-ah oo haddana zinaysanaya waa cibadu ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa melikun kadaab boqor ama madax beenaalo ah trustalinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beledu ku dhacaysu ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yihi waa caa'ilun mustakbir wax mahayste haddana kibray bini aadamka kalaa ina alinsaana la yadqaa an ra'ahu istagnaa baa ilahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin midaan waxba haysanay hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha